laakiin waxaan su'aal idin qabaa ma hadday sidaas jirto sababta Somaliland marka aan loogu diidaayo inay goosato maxay tahay ka fakar yey ku qaadin caadifad iyo qarrac lama rabo Somaliland waa dad walaalaheena waaye dad walaalaheena waaye sababta loogu diidaayo marka inay goosato marka maxay tahay sababta loogu diidaayo ha fasax marka Somaliland ya waayo haddaad badhiibaysaan oo bari inta isu imaataan oo sabti ah aad dhihi doontaan waa sax go'aankii golaha wasiirada oo waa sax maxay ahayd wixii ninkaan lagu dhiibay haddaad bari dhihi doontaan waxba dadkan Soomaaliyeed cuqdo intaana ugu filan waxba cuqdaha kala gelinina Somaliland u ogolaada inay wadan gaar noqoto waayo shantii Soomaaliyeedba idinka kala diraya idinka ayaaba shantii Soomaaliyeed kala diraya hadda runta rabtaan war in run bay ku ooyaan run baa leedin sheegaya hadda runta rabtaan idinkiiba shantii Soomaaliyeed kala diraya calankan shanta maxay ahayd xidigta shanta gees ku taalana naga ana ka jecel naga dhaafa hees kala nootala cagaar iyo jaalle iyo buluug iyo madow isku kaaya dhextala qof walba hilifo tolay ayaan taane hilif kala nootala Somaliland fasaxa ha waayo institutionkii oo dhan idinka kala diraya wixii shanta Soomaaliyeed ma jiro shan Soomaaliyeed mana soo socon laakiin wixii shanta Soomaaliyeed qalbiga ku dhisanaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed institution noo aha ayaad idinku kala diraysaan ogaada mar haddaad kala dirtaan oo NFDna ay haysato Kenya haysato Ethiopia aatan u saxiixdaan ya ilaahay kuma samadiide Djibouti aanaba marka hore idin ku biiran ay wadan idinka noqoto sababta Somaliland kale looga laadlaadsada waa qalab ya wax iga jecel maanta in midnimo Soomaaliyeed la helo ma jirto laakiin haddana wixii aan soconaynin oo qalad waa in la istuso waa inaad ku baraarugtaan ya xasan sheekh damage badan uu soo gaarsiiya ya rumbaan idin sheegaya walaalaha waqooyiga fasaxa ayakana haddaad barisaas dhihi rabtaan fasaxa way u haysataan 27 sano ayay inta nabad samaystaan ay dawlad samaystaan ay kala dambayn samaystaan ayay dad nool oo meel iska bixiyo noqdeen adiga marka walaalka dhacaan waaye maxaa u xasbaysaa ya maxaa u xasbaysaa حسبنا سي مركا سي قوسشوها وقالوا وطن هالنقدان Somaliland وايو أديجي الدولة دعها أيا institution كشانت الصوماليات نحن كله فنوية هذا أقادين يا قبل كأقادين ده كان مدة كلا يسكو خلدا Somaliya هيسكو خلدنا أقادين وقبيل قبل كأقادين وقبل كأقادين أو قبيل أقادين كلي أنو دقن أو دق Somaliya أو دن أي دكتور أقادا هيسكو خلدنا يا walaalihiina waqooyiga u fasaxa hanqadana wadan gaar ah yeesha xuduud yeesha wada shaqayn yeesha baasaboorka kala gaar ah darisnimo ku wada noolaada hadii kale go'aankan ka fiirsada intii caawa haysataan bari inta isu timaadaan hadaa rabtaan inay tiraahan go'aankan sax buu ahaa adeerayaal waxaas ma soconayaan ya hadalkaygi marka soo gabagabayna qadkii cawada waa igu dheeliyo tii qad ahaa aad igu dheela walaalayaalow runta lagama raysto runta waa xaq waaye si islaamiyana waa wargaalka oo ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyay ayaa run sheega adiga oo